السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal, maanta waxaan muuqaalkeena diiradda ku saari doonaa awoodaha fikirka wanaagsan iyo kobcinta garaadka maskaxda. Waxaan kula wadaagi doonaa farsamooyin iyo talaabooyin aad ku wanaajin karto fikirkaaga wanaagsan iyo inaad kobciso garaadkaaga maskaxda. Haddii aad sida saxda u raacday, waxaa isbeddel muuqda ka samayn kartaa noloshaada, waxaana xaqiijin doontaa guulaha noloshaada. intaana bilaa muuqaalka waxaan kaa codsanayaa haddii aad tahay saaxiib nagu cusub inaad janaalka subscribe, like, share iyo comment. haddii aad tahay saaxiibeena la joogana waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka inoo qurxiso oo meel dheer inoo gaarsiisay. aan bilaawno muuqaalkeena maanta. qodobka koowaad ee la rabo waxaa waaye waa inaad fahantaa fikradahaaga. tallaabada ugu horeyso waa inaad ogaato fikradahaaga. u fiirso sidaad ula hadasha naftaada iyo waxaad aaminsan tahay. ma yihiin kuwo tagan oo awood leh, mise waxay u janjeeraan inay noqdaan kuwo taban. xusuusnow in fikradahaagu oo door weyn ka ciyaaraan kobaca maskaxdaada. mar walba oo aad naftaada si wanaagsan ula hadashi, waa mar walba oo naftaada ay dareento farxad. mar walba oo aad naftaada si qaldan ama si xun ula hadashi, waa mar walba oo aad dareenti murug iyo dhibaatooyin. qodobka labaad, caqabadaha fikradaha xunxun. marka aad caadaysatay inaad mar walba si xun u fikirto, waxaa la rabaa inaad la dagaalanto caadadaas xun oo aad isweydiiso waxa ay ku saleysan tahay fikirka xun. ma cabsi baa mise waa malo fikir ah? ku bedel fikradaha xunxun oo ku bedel caadooyin togan ama dib u qaabeen. tusaale ahaan, halkii aad odhan lahayd ma samayn karo, waxaad ku tiraahdaa naftaada anigu waan awoodaa oo waxaan leeyahay awood igu filan. qodobka saddexaad, mahadcelintu waa aalad awood badan oo lagu kobciyo wanaagga. qaado dhowr daqiiqo maalin kasta si aad ugu mahadnaqdi naftaada wax walba oo wanaagsan oo naftaada samaysa ama hadaf ah oo maalintaas aad gaartay. mar walba oo aad naftaada u mahadcelisi, waa mar walba naftaada ay dhiirigelin iyo in awood badan ay ka yeesho. qodobka afaraad, la saaxiib dadka wanaagsan. naftaada ku hareerey dadka saameynta togan leh. waqti la qaada dadka ku taageero oo ku dhiirigeliya mar walba. ka fogow shakhsiyaadka xunxun ama kuwa mar walba jecel guuldaradaada. dooro inaad qabato howlo ku farxad gelinayo oo ku siinayo awood. qodobka shanaad, wax ka baro guuldarooyinka. guuldaradu waa qayb nolosha ka mid ah oo lama huraan ah. halkii aad guuldarada u arki lahayd dib u dhac, u arag fursad aad wax ku baran karto oo aad ku kori karto. guuldaradu u arag inay tahay jaranjaro dhanka guusha ah. xusuusnow, qof kasta oo guuleysta waxa uu la kulmay guuldarooyin intii uu socday safarkiisa guusha ah. qodobka lixaad, yeelo aragtida guusha ah. waa inaad leedahay fishin oo guul ah. aragtidu waa qalab awood u leh oo lagu muujinayo gaarista yoolkaaga. qaado dhowr daqiiqo maalin kasta si aad u sawirto naftaada oo guuleysata, xaqiijinaysa yoolka aad ka leedahay noloshaada, oo aad ku nooshahay nolosha aad ugu habbooneyd oo aad rajayn jirtay. bal qiyaas sida aad dareemayso araggaaga, dhawaaqyada qalbigaaga iyo dareenkaaga la xiriira guusha. mar kasta oo aad aragtid, waxaad abuurtaa nashqad togan oo maskaxda miir qabka leh. mar walba waxaa loo baahan yahay in aad yeelatid fishin oo aad ku gaari kartid guushaada. dambeeya oo ah midka toddobaad, samee ficil. fikir togan waa lama huraan, laakiin waa in ficil ku dartaa. qaado tallaabooyin yaryar oo kuu dhaweynaya yoolkaaga iyo riyadaada. u kala qaybi howlahaaga, kuwa la maareyn karo iyo kuwa waqti badan u qaadanayo, oo u dabaaldeg guul kasta oo aad gaartay intaad guda jirtay safarkaaga guusha ah. mar walba oo aad tallaabo qaadid, waxaad dareemi doontaa kalsooni badan. waan kaaga mahadcelinayaa inaad dhammaysatay muuqaalkan. mar walba waxaan ku xasuusinayaa haddii aad tahay saaxiib nagu cusub inaad janaalka subscribe, like, share iyo comment.